السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشوين تكحران من نمو تي في دمانتي وين سلام يا ولكن عبد السلام الشيخ حسن سيدي عادة هيدبا رنتي مربا دبناها أما قف كما جرنا يسايي تعدي أما علي سارين يهي مركا عدكي سينا ندين سو قد بينو ما ممكن شعب كباي قادو أيان انت بدن برنامج هالكن إذن كوكو سو قد بيا ما انت برنامج باندين هيا إذن كهر دعي مايو qofka aan idin hayo dibanaha amaanta isaga afiisa idin ka sheegi doona waxaan jeclahay inaan isaga mikrofoonka marka hore ku soo dhaweeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawo walaal bal marka hore shacabka isku sheeg kuma tahay horta marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogaan waxaan leeyahay salaanta islaamkaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. magacaygu aniga waxa weeyaan Cabdi Cismaan Gudaal waxaanan ku magac dheerahay Cabdi Fanax fanaan baan ahay Soomaaliyeed oo kulleydii bulshada inay taqaana laga yaabaa inaan aqoon laakiin aan u maleynayo boqolkiiba adigu 85 aan iska idhaahdo inay garanaysaa u maleynayaa insha Allah. waan gartay soo dhawo walaal fanaan Soomaaliyeed oo deegaan ka soo jeeda tahay reer Jigjiga ah in muddo ma garanaysaa deegaanka ka maqnaa bal marka hore goorma deegaanka ka tagtay horta Cabdisalaam waad mahadsan tahay deegaanka waxaan ka tagay anigu waqtigii taariikhda Ingiriisiga haddaan idhaahdo 2009 baan ka tagay waxaan ku soo noqday 2019 hadda waxaan joogaa 2 sano oo wax yar dhiman isbedelkii markii uu dhacay ayaan ku soo noqday deegaanka anigu deegaanka waan u dhashay magaalada Jigjiga waan ku dhashay marka waqtiyadii tacadiyada ay jireen anigu waan ka tagay koox waxay jirtay markaa aan aasaasnay kooxdaasaan ka mid ahaa kabacdi markii aan baxay anigu markii kooxda waxa la yidhahdaa liyu band baa la yidhahdaa markaa horena waxa la odhan jiray istar baa la odhan jiray hay wax ma cod baa dhawaaqay waan gartay ku soco maxaa la odhan jiray kooxda marka hore waxa la odhan jiray wadani istar imikana liyu band baa la yidhahdaa waa kooxda keliya tii deegaanka ka dhaqaaqda ciidamada gaarka ee liyu booliska kooxda ay leedahay weeyaan waxbaa kaa dhex dhawaaqaya mobilka waxbaa kaa dhex dhawaaqaya ma garanay wuxuu yahay okay waa sax hadda weey okay wadan ku maqlaa hadda waa okay marka way kooxdaas aad asaasteen deegaanka joogtay waqtiyadii iska culaysyadu jireen baad ka tagtay deegaanka muddaad maqnayd isbedelku hadda markuu dhacay baad soo noqotay hadda markaad ku soo noqotay deegaanka waxaad ii sheegtay inay tacadiye la kulantay oo dhibaatooyin culays ay meel kale ka haystaan bal inoo sheeg dhibtaad ka cabanaysay wuxuu jiraan horta Cabdisalaam waa sax weyn saddex qodob baan doonayaa inaan ka hadlo ka wada hadii Allah awoodiga ogolaado markii aan imid deegaankan hadda ku soo noqday horta xagga waxaan ka salaamayaa horta maamulka deegaanka Soomaalida dhammaan si u dhan yihiin madaxa ugu sarreeya Mustafa Maxamed Cumar waan salaamayaa maalmaha ka mid ah anoo joogo markaa ilaa 6 bilood meelahaas ku soco meel aan holo lisugu yimaado holka sayidka la yidhaahdo lagu qabto qasadooyinka iyo waxa lagu qabtaa iyo shirarka iyo waxaas lagu qabtaa ma garanaysaa si fiican holka sayidka anoo halkaa dhex taagan oo kooxda iska dhex joogo markaa kooxda meesha markaa kiisay oo kooxdii aniga oo dariga hore aan ka mid ahaan jiray qayb ka mid ah joogta markaa anoo meeshan stage iska taagan baa madaxweynaha arkay Mustafa markaan soo yiri inaan booyis hadii waxa igu yiri hal igu yeeray ninkaas oo la igu yeeray agtiisa fadhiistay waxa igu yiri ma garanaysaa waxaan ku wardeenay madaxweynaha deegaanka tayo garanayaa waxa igu yiri hadaba ana iska sheegaya arooskayga baad ka heestay waa mar uu jaamacadda ka soo baxay oo aan dhaweyn dad dhowr iyo 20 sano ka soo geeyay 23 sano meelahaas ma madaxweyne arooskiisii waayadii uu soo qalin jabiyay uu aroosay baad arooskiisii ba ka heestay markaa isaga ku gartay oo ku yeeray isaga ay yeero ay gartayba waan gartay marka anaguna maadaama fanaanay haddana dadkii ugu yeekiyo nin calaamad baan ahay oo nin faruuran baan ahay haddana isku kalsoon oo isku qaracsan ma garanaysaa cad farax baa lagu dhahaa waa sax waan ku garanaya anigu walaal waan daawaday barnaamijyo heesaa leedahay xataa daawaday waan ku garanayaa
ما dadweynaha u sheegay inaan isku kalsoonaan dadweynaha u sheegay oo markaa isagaa saa isugu kay sheegay waayay baan ku yidhi kabacdi haddana maalin kalaan madaxtooyada tegey maalintii dambe haddana madaxtooyada tegey haddana si leeg haddana intuu kooxdii soo dhex istaagay uu gacantay qabsaday banaanku ila baxay laba wasiir buu markaa u yeedhay haye wasiirka madaxtooyada xasan daadiyo waxa uu yeedhayo ku-xigeenkiisa la yidhahdo cabdirasaaq la yidhahdo si fiican baan u garanaya waaye markaas wuxuu ku yidhi ninkan ma garanaysaa markaasi ku yidhahdeen maya ma garana markaasi ku yidhi ninkan waa nin caynkaas waa nin fanaana waa nin u baahan in noloshiisa kor loo soo qaado waa fanaan weyn marka jadintan in loo talo ayaan rabaa jidada meel allaaliyo meeshii adduunka doono oo idiin sheego iyaad u diraysaan kharashkii ku baxay oo dhanna oo idiin soo sheegana siiya sidaa ku ando bixiyo 6 bilood yaan idiin qabanayaaye ninkaasoo degta loo soo talayaan arko haye adigu dee madaxweynaha waad garanaysaa iyo dawladda shirar iyo kolba dhibaato iyo waxbaa iska imanayo safaradooda iska badanayo moogtay waa runa lambarkiibaan adigu kala qoranay xasan daadi iyo ku-xigeenkiisiiba okay adisaaba ii direen adisaaban baasaboorkayga iga dhacsanaayo 9 sano iga dhacsanaa wixii iga dhacsanaa 6 sano 5 sano iga dhacsanaa adisaaba baasaboorkida soo bedeshay jijigaan kusoo noqday haye madaxweynida haddana mar kalaan haddana isaagna waxay ku yidhi nimankii ka warra arrinkoodii waxaan iskugu nimid markaa hadalka aan kuu sheegayo erey beenana kuma darayo siday tamumaa kugu sheegaya moogtay aad haddii beenta ilan codkan uba dhegeysan madaxweynuhu adigun bay kugu soo noqonaya shacabkuna way dhegeysanayaan kolley yaa ku soco geeri baan isku aragnay geeridii markaan isku aragnay haddana anoo gaari dhex igu yidhi iyo arka ninkaasi gaarigii israagisaagida igu yidhi soo dego waana soo dego ويلا هذا الدنيا يقول كور إنه كي حسن دادي يا رجال حقيقة مرينا حنقول بريء كذا ويجي بيسنا الحين هي إن اللي يرادو عبد السلام إن عبد السلام اللي يرادو يعني بروتوكول كيسة أيوه هذا هلا يبي يرو كذا لو يرو كذا هذا يجي جنب قرط إنك حسن دادي أول شيء قبل وين أدوك الدم يصير بكوري هذا ينكي هي إن كنا نضحك كلا قرني kabacdi waxa dhacday inaan kiina safariyo galgalay oo dhowr jeer baan la hadlay maalintan wada hadalnay adisaba jawaabay gudna kaasaawi dadaan ku idan axadii la dalanay axadii la soo hadlay wixii uu yiri anaa soo garaacay si kay hadana waan garaacay sadixii dambe ee isniintii marka halka xaafada waxay ku taalaan deganayda waxay ku taalaa halkan jaamacadda agteeda way ana xaafada ka soo baxay baan garaacaynay أنا ما كان سياريو ده طلنتين عن مكان قصة عظمة مقرنسة. هيا. على السلام طاعتنا يقول لي والله نال طعم طحن وهذا يقول لي من أنا تلفونك كوالده يعني سكوت من ده وطلع كذي كذا كان عندك شو كان عندك قصة كويسة ما كان السوري من العين السوري. هيا. يلا لو بس سعيد بس إنا كذا كاركية من العينيو إنا كذا نارجع من العينيو ده اللي قلت لي كاركية بس هاو شامل عطيه وأنا بسعيد من العيني كل يوم وصل على السالة. mar dambe caddu dib u dhigaan sidaayay iyagoo dambeysanankii oo kan garaacay tilsoonka iyo qabanay marka mushkiladii adaba ay haysataan adaba ku sheegeen hay mushkiladii haysataa waxay noqotay markii hore fanaaniinta nin fanaan ahaa oo way ixtiraamayeen way soo dhaweynayeen maalintii madaxweyne labada jeer iyagoo ay arkayeen fanaaniinta uu ii yeedhay waxay u arkeenba inaan xilkii kala wareegayo oo magaranaysaa nin madaxweyne watay baan noqdiyaan noqday moogtay hay maxay hayaan maxay dhibsanayaan talo jabnaa waa gudoomiye saddex nin ma ka cabanaya saddex nin waxa weeyaan waa gudoomiyaha kooxdii aanu aasaasay iyo ku-xigeenkiisa iyo ka kale ka sii xigay waa saddex nin ma garanaysaa waa magacood walaal bal dadka u sheeg iyo madaxweynuhu waa kula ogaaday saddex nin magacood haddaan sheego madaxweynaha kooxdii anigu aan aasaasay ninka haysta ee gudoomiyaha ka waxa weeyaan waa Axmed Dudul ku-xigeenkiisana oo ninkii anigu aan tababaray xagga fanka anigu aan waliba macalinka oo ahaa Maxamed Salmaan Daleed isagana waa ku-xigeenkiisa ku koro isagana ardaygii ahaa dadkii aan wax baray ah Abdisha isagana la yiraahdaa oo isagana waa qofka saddexaad weeyaan saddexdan nin baa waxay sameeyeen goob kaste oo ama shirkad dhacayo ama madaxweynuhu iman karo oo ana awalba free ahaydo faraxana ku kaleeyay yiraahdeen ninkaasi maadaama ninka cadfanax yiraahdee calaamad daare ee saaw ee naba soo geli karo hoolkii ma galo ayay ku ordayna markaa siinayaan
ciidankii bay amar siinayaan ciidankii ilaalinaya ciidanku waxay ilaaliyaan iyagu waa amar qaato weeyaan ninka ciidankii moogtay haye saddexdan nin ku sheegayaan darajooyin bay leeyihiin markaa darajadan baa la qiimeynayaa askartii ugu bilaabay waxay leedahay ninkaasi ma soo geli karo meel waa koox ciidanka ka tirsan waa kooxda liyu baan weeyaan hadda ciidanka ka tirsan maanta أنا عيدك ويبغى عيدك اللي يبوليس كوين. عيدك اللي يقول بلدنا وعيدك اللي يبوليس كا. وين هي؟ فجأة يقول بلدنا أنا وأنا. هاي يوم عيدك كتير سي. ياس يا ود كو أمريان عيدك. مشارك هي كقاطان كوح كاستعمال مشاري يوحي كو تيرسين أفر كوحات باكر دسن ديجان كأفر تكوحات واللي يبان هرمود وضني waxa weeyaan Liuban iyo Hormud iyo Anshax iyo Ilis afar kooxood kuma sheegay igu soo waxaan rabaa dibta si dadku ogaadaan u fahmaan nimankan ciidanka amraya ee ku oranaya ragga ayuuna soo gelin Axmed Budul muxuu yahay ma ciidan ba ma sarkaal ba yaa siyaawada uu ku amrayo askariga albaabka joogo ku oranaya ninka ayuuna soo gelin askariga anigu aan markaa ku yiri hal askari baan la hadlo waxaan ku yiri maadaama awalba hoolka soo geli jiray sayidka oo ay bulshadu leedahay uu tiyaatarkii yahay caasimada ma amarka ma waxa ku siiyaan ku yiri nin ciidanaad ee ninkii ku amriyada ayaa ku siiyay ku yiri ninkaasi ma soo geli karo mise Axmed Budul ba ku yiri wuxuu yiri Axmed Budul ba igu yiri nala soo geli kartaa dad soo dhisaagtay inaad mid casban fooda kaaga dhufanaya muxuu yahay Axmed Budul aan ka hayn inuu fanaya inuu fanaayo xitaa anigu ma garan karo waayo fan haddii noqoto anigu dhowr iyo 3 sano ku jira fan hadda muhiimadu ma inuu ka dambeeyo inuu ka horreeyo macnaanay ma sameeyay waxa macnaay sameeyay waxa weey waxa aan rabaa dadka aan garanaynin Axmed Budul qofka uu yahay way qof shacabka iska caadiga ah matalan nin muwaadin oo tuulo jooga dhageysanayo waraysigaagan waxa aan rabaa inaad u sheegto Axmed Budul maadaama uu saraakiisha garanaya awgeed ayuu saraakiisha qaar la hadlaya oo uu ku leeyahay ciidankiina amar siiyo ninka ayuuna soo gelin ma isaga ciidanka ka tirsan oo title leh oo ciidanka bato soo amraya albaabka jooga waxaad u sheegtaa dadka qofkan Axmed Budul ama nimankan kale aad sheegtay awoodda ay ku amrayaan ciidanka ee adiga lagu soo deyneen ana ku sheegay taa dadweynaha waan sheegayaa cabdiyo waxa weeyaan Axmed Budul maadaama fanaan yahay kooxda Liuban uu yahay Liuban ay ku tirsan tahay kooxda ay ka mid yihiin ciidanka gaarka ee Liubooliska ay ka mid yihiin waa koox sidii heegan oo kala waa koox ciidana marka hagaag intaan ka rabo waa sida waa koox ciidanka gaarka ka tirsan oo mushaar dawladda ka qaadata oo ma garanaysayo ciidan oo kale ta qoran marka sida awgeed waa marka uu siinaya ina saa ugu cadeeysan ka rabo ujeedkaygu intaas waa inaad dadka u sheegto ka soco imika nisbaanaa waayahay marka nimankiisi waxay ka hor joogsadeen inaad xaflad meel madaxweynuhu imanayaba aad dhimatay ka hor joogsadeen sidoo kale namaradii nimankii madaxweynuhu kugu xidhana ilaa hadda wax xukuumayna qabanin telefoonna kaama qabanayaan waayahay intaa waan kula gartay fariintaadan hadda haddii madaxweynuhu dhageysanayo maxaad fariin u diri lahayd madaxweynaha horta waxaan leeyahay horta maadaama tiri adigu fanaan oo arooskayga ka heestay dibaddan ku diray dibinta lagu talo horta waa balka qabaaba madaxweyne aad baan u mahadsantaan leeyahay haddii ilaahay ii qoran waan ka heli haddii kalena dee awalba waan saasaas ka ahay oo dhigma hayso ta kale waxa kaloo halkan aan badiyo uga dirayaa ciidanka Liubooliska masiirka ugu sarreeya jaranka Liubooliska waxaan leeyahay shantii course ee ugu horeeyay ee Liubooliska heeska kaliya tii Liubooliska ay ku faanaan ilaa imika ninkii qaaday ee ugu horeeyay Liubooliska inuu heesa inaan ahayna fartan ka cadeynaya dadweynuhu way og yihiin wixii ciidanka wixii nool imika shanta course sheegay inta nool ee saraakiil u badan waliba iyagana waxaan leeyahay waa ninkii heeska idin qaaday baan ahay waan idin salaamayaa heeskiina jawaan wad maqli doontaan baan u maleynayaa insha Allah kulley horta ballamaha badan ee laga cabanayo madaxweynaha dadka cabanaya adii kow kama tiid dad badan oo wax badan uu ballan qaaday oo ka cabanaya baa jira
anigu waxaan runtii la yaab waxoogaa igu yaraa Mustafa inuu qof shacab oo iska caadi oo sidaas oo ixtiraam u muujiyay oo kula hadlay oo ku sheegay inuu ku garanayo adarooskiisi ka heestay oo على الأقل horta ixtiraam saasa ku muujiyay anu runtii Mustafa nin saa ma aqaano laakiin inuu inta xataa sameeyay ayaa wax weyn runtii aan arkaa وهاجا كل واحد رجينا يا إنه دقيسن دونه عد كاج إنه دقيسن دونه من أدور رجينا يا عبد السلام runtii marba cabsalaam wuxuu aday galaan ruux rajo beelaway kaliya ma odayo waaweyn oo Mustafa ku xidhay oo waxa uu qabay leeyahay oo ballanti kaga baxay baan ogahay dhalinyar arday ah oo qalin jabinaysay oo Mustafa uu la kulmay oo wax weydiistay oo cabsalaam ku bilaamay oo cabsalaam kaga baxay baan ogahay wax badan baan ogahay ma ogi anigu shakhsiyan maanta in cabsalaam isla ogyihiin oo ay qaab ku wada shaqeystaan boo war hebelka wuxuu qabay waayahay iyo number kala qorta iyo inay tahay iyo inuu cabsalaam shakhsiyadiisa isagu qof xun tahay oo damiir lahayn inuu yahay labada ma kala saxayo laakiin xataa Xasan Daadi sababta uu fulin waayay ballanta runtii ma fahmin ناديو عبد الرزاق بعض شيء حتى وزير كحيين كان نادي هذا أخلاق بدنا لفت الكيس صوته في الوعي بلنت ما قرنا يو نسكو سوى ضدوبه وحرتين يا إن شاء الله تعالى إن عد كاجنو جارو ما ملك يدي يا شعب كبو جارو وهذا ضمنا هذا شو كالمينتي ياد من نهيد هذا الشو بان وأي رتين يا ولال وأنا تكون هتصنت هاي وأنا إن شاء الله تعالى وحكي كاجا صوكرنا وحكي كاجا صوكرنا إن شاء الله تبى نقوله وذا بدون إن شاء الله انت انا تكبي حنا waxaan kala ku sheegan kugu daraya hatta fanaanku marka uu yimaado jigjiga ama uu dhashay deegaanka ama meel kale baa ka yimaadee wax show leeyahay fanaaniinta loo qabtaa fanaanka martidaas yimaado marka hatta show inaan qabsado way ii diideen oo xitaa dhowr jeer baan ku dhawaan qabsanayaa way adag kolba wax kale ii sheegaan faraha ka qaaday show xitaa inaan dhigo code marka هاسكينو كوسو ترى إن شاء الله هاسكي ليو كوسو كوسو ترى وهاسكي يجعل نسمي إنتري عن قاضي ويا وإنكم كانوا ما غشين كرتا إريو الله يفك بو قاضي كريا إنك ما غشي وحينك جارك كوسو بصير ولا رنتي وحسكا وأنت تاجر سنة بقول كيف بقول مركا هو عادي إنه ضاد حوجها إنه ما غشين كرت إنه عادي إذا أنت أولادي ديو تلجير روحو شانعي تركيا بنيجيو تجانا شنبدي فحذا ما تنو ما كريمو دحتي عيدينا دفاعان ديريسكا هيدانا خاي ديريسكا هيدانا خاي دير إلا قول لدانا حتى يحسو بحانا خاي تنبيا ليو بوليسكي تبحاول قالكودي لغو دير سدانا هاي إمك الله يفاقه قاضي يضو أمساو قاضي أنو فرنادي هذا عود معان باتورا الادي هذا بنكوغو مهنقينا اي صدر يضو هيستو ان دمايسترنا يغو صدر ان شاء الله واتساب كالكان يغو صدر كرتا وحي كاغا سو كordha arintan si aynu daba socono in sha Allah ta'ala wixii kaaga soo kordho wareysigan ka bacdina waa nala soo wadaagi doontaa in sha Allah ta'ala wala